bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin haysa waxaa u doonoon isku day afgembi oo ka dhacay maamulka amxaarada Itoobiya iyo rasaas la maqlay Kenya oo jawaab ka bixisay go'aankii dalalka carabta ee xiisadda badda Soomaaliya madaxweyne xaaf oo laba shardi ku xiray la shaqaynta ururka al-sunna wal jamaaca gobolada dhexe iyo ra'iisul wasaare Kheyre oo galmudug u diyaarsaday shakhsi ka soo jeeda beesha Dibadle wararka dibadda ee warbaahinta isha wararka idin haysa waxaa u dooran maamulka gobolka tirsan Mareykanka oo madax furasho lacageed siinaya koox burcad ah waa hagaag daawadayaal intaas waxay ahaayeen qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin hayso haddii aad ku cusubtahay channelkan fadlan subscribe dhee gujiga baleelka si wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya uu ku soo gaaro waa hagaag aan ku bilowno isku day afgembi ayaa ka dhacay gobolka amxaarada ee dalka Itoobiya sida uu shaaciyay xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed wararka ayaa sheegaya in ciidamo isku dayeen in xukunka ay kala wareegaan madaxweynaha gobolka amxaarada Dr. Ambecho Meknon sida uu xaqiijiyay Neguso Telahun oo ah xogayaha warbaahinta xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxaa la maqlay rasaas xoogan oo qayb ka mid ah gobolka ka dhacisay waxaana jira khasaaro nafeed oo ka dhashay oo aan weli la ogeyn intuu leegyahay warar aan la xaqiijin oo baraha bulshada lagu baahiyay ayaa dhanka kale sheegaya in Dr. Ambecho uu dhaawac yahay inkastoo xafiiska wasaaraha Itoobiya uusan arintaas xaqiijin si kastaba qaar ka mid ah ilwareedada ugu xoogan ee gobolka amxaarada isla markaana caan ka ah baraha bulshada sida Mulukon Tesfo ayaa warinaya in ay halis ku jirto nolosha madaxweyne Dr. Ambecho isla markaana dhaawaciisu yahay mid halis ah Neguso ayaa shaaca ka qaaday in afgembiga la doonayay in xukunka lagala wareego saraakiisha maamulka amxaarada oo ah mid ka mid ah maamulada ugu awoodda badan dalka Itoobiya Neguso ma uusan shaacin magacyada ama cidda ay yihiin kuwa ka dambeeyay afgembiga waxaana dadka gobolka degan ugu baaqay inay feejignaadaan oo ay difaaca gobolkooda u heelnaadaan warbaahinta dawladda ayaa dhanka kala sheegtay in ciidamada ammaanka gobolka iyo kuwa federaalka ay fashiliyeen afgembiga isla markaana ay xaaladda iminka gacanta ugu ku hayaan gaar ahaan magaalada Bahirdaar ee caasimadda gobolka amxaarada waxaa sidoo kale la sheegay in gacanta lagu dhigay isla markaana la xiray dad la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin afgembiga dalka Itoobiya waxaa ka jiray xaalado iyo xiisado siyaasadeed oo kala duwan tan iyo markii uu xukunka la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromada oo ah qowmiyadda ugu tirada badan ee dalka Itoobiya isla markaana aanu caan ku ahayn xukunka siyaasadda ee dalka Itoobiya waxaa taas dheer dagaalo iyo colaado u dhaxeeya qaar ka mid ah qowmiyadaha kala duwan ee dalkaas ku wada nool si aysan ku dhaafin wixii ku soo kordha xaaladda akiran ee ka taagan gobolka amxaarada ee degto dalka Itoobiya fadlan subscribe channelkeena oo aanu halkan soo gelin doono wararkii ugu dambeeyay ee isbedelkaas la sheegay inuu ka dhacay gobolka amxaarada waa tahay wali waxa saaxiibayaal daawanaysaan wararka warbaahinta isha wararka haddii aad ku cusubtahay channelkan fadlan subscribe dheh si wararkii ugu dambeeyay uu ku soo gaaro Kenya ayaa jawaab ka bixisay go'aankii dalalka carabta ee xiisadda dhinaca badda oo Kenya ay sheeganaysa qayb ka mid ah badda Soomaaliya dawladda Kenya ayaa ka hadashay baaqi uu dhawaan soo saaray baarlamaanka carabta ee Kenya looga digay inay isku daydo inay ku xadgudubto biyaha Soomaaliya warka soo baxay dawladda Kenya ayay ku sheegtay in Soomaaliya ay weerar diblomaasiyadeed ku qaaday Kenya markii ay sheegashada Kenya ay biyaha Soomaaliya geysay baarlamaanka carabta Kenya ayaa intaas raacisay in dacwadda ay bilowday Soomaaliya sanadkii 2014 isla markaana ay geysay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ haddana ay baarlamaanka carabta hordhigtay taasi oo ay ku qeexday dagaal diblomaasiyadeed oo xoogan oo ay kala kulmayso Soomaaliya Kenya ayaa loo doortay hoggaanka kooxda xiriirka Soomaaliya ee la socda dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda Soomaalida taas oo Soomaali badan ka careysiisay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa weli si rasmi ah uga hadlin go'aanka Kenya lagu siiyay in muddo 2 sano ah ay ilaaliso biyaha Soomaaliya asiyee warar aanu helino ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uu ku canaantay in arintaas uu dadaal yari darteed ay keentay in Kenya ay 2 sano ee soo socota ay madax ka noqoto kooxda la socodka dhaqdhaqaaqa biyaha Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa 2 shardi adag ku xiray la shaqaynta ururka al-sunna wal jamaaca ee gobolada dhexe wararkii ugu dambeeyay aanu ka helino Dhuusamareeb oo ah caasimadda dowlad goboleedka Galmudug
ayaa sheegaya in madaxweyne xaaf uu diiday sii joogitaanka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud iyo la shaqaynta ururka ahlusunna waljamaaca ee gobolada dhexe. xaaf ayaa laba shardi oo adag ku xiray inuu la sii shaqeeyo ururka ahlusunna waljamaaca ee gobolada dhexe si uu u sii joogo magaaladaas. labadaas shardi ayaa la sheegay inay kala yihiin in ciidamada daacadda oo xaaf ee lagu xayiray duleedka magaalada dhuusamareeb loo ogolaado inay soo galaan gudaha magaalada dhuusamareeb, in wafdiga dowladda Soomaaliya ka socda ay isaga baxaan magaalada isla markaana la joojiyo wada hadallada. labadaas shardi ayuu xaaf ku xiray inuu sii joogo magaalada dhuusamareeb oo ay gacanta ku hayaan ciidankii ahlusunna ee hadda ka tirsan galmudug. waxaa laga yaabaa in madaxweyne xaaf saacadaha soo socda isaga baxo magaalada dhuusamareeb oo ay ku xoogan yihiin ururka ahlusunna waljamaaca oo mar dambe la midoobay maamulkii galmudug. haddii tallaabadaas aan la fulin ayaa la tilmaamayaa in xaaf uu suuragal dhigayso inuu u jihaysto dhinaca gobolka mudug. dadka falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya inuu fashilmi doono qorshaha dowladda ee ahlusunna haddii la waayo xaaf inuu qayb ka noqdo wadahadalladaas, maadaama uu isagu yahay madaxweynaha sharciga ah oo ay ka go'do talada maamulkaas. ciidamo aad u hubeysan oo taabacsan madaxweynaha galmudug axmed ducaali geele xaaf oo ka soo ambabaxay magaalada gaalkacyo ayaa gaaray duleedka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaas, kuwaas oo lagu celiyey duleedka magaalada. ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay soo dooneen madaxweyne xaaf oo la qorsheynayo in safar dhulka ah ku gaaro magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. wixii ka soo kordha wararka ku aadan arrinta galmudug fadlan kala soco youtube-keena oo subscribe dheh oo gujiga madalka asxaabtaadana share war dheh si aanu marka halkan aan soo gelino wararkii ugu dambeeyey aad durbadu u heshid. ugu dambeyntiina kheyre ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa galmudug u diyaarsaday shakhsi ka soo jeeda beesha Duduble sida wararka hordhac ah ay sheegayaan, iyadoo labadii maalmood ee ugu dambeeyey xaaladda galmudug cirka isku sii shareerayso kadib markii ay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay gaareen wafdi ka socda dowladda federaalk ee Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin galmudug ka soo jeeda. imaantanka dhuusamareeb ee wafdiga dowladda dhexe ka socda ayaa khilaaf xoogan ka dhex abuuray madaxweynaha xilli holeedkiisa lagu muransan yahay ee xaaf iyo madaxda ururka ahlusunna waljamaaca kadib markii uu xaaf diiday in wafdigaasi dhuusamareeb yimaadeen, balse madaxda ahlusunna ka soo horjeesatay uuna sheegeen inay iyaga casuumeen oo ay imaanayaan uuna xaaf joojin karin, taas oo dhabowday. warar ay heshay warbaahinta isha wararka ayaa sheegaya in wafdiga ka yimid muqdisho uu ku jiray madaxweynaha cusub wasaare kheyre u diyaarsaday inuu xaaf kadib maamulo galmudug, kaas oo la sheegay inuu yahay cabdilaahi faarax weheliye oo wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta xukuumadda kheyre, kaas oo kheyre ay farmaajo u arkaan inuu fulin karo danaha ay ka leeyihiin galmudug. mas-uulkan uu kheyre u diyaarsaday inuu noqdo madaxweynaha galmudug ayaa ka soo jeeda beesha Duduble. waxa uu ra-iisul wasaare kheyre ballanta uga baxay sida la xaqiijiyey Axmed Kaariye Qoorqoor oo xilligan ah wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta, kaas oo la saadaalinayay inuu noqon doono madaxweynaha cusub ee galmudug haddii xaaf uu meesha ka baxo. waxaana Qoorqoor uu ka soo jeedaa beesha reer xaaji Saleebaan ee habargidir, taasoo lama filaan ku noqotay siyaasiyiin iyo shacab badan oo bilihii ugu dambeeyey la saadaalinayay inuu noqon doono madaxweynaha galmudug, balse ballanta looga baxay. sababta ra-iisul wasaare kheyre ballanta uga baxay Axmed Qoorqoor ayaa dad ku dhow u macneeyeen inuu yahay siyaasi ilaa dowladdii Shariif Sheekh Axmed ku soo jiray siyaasadda islamarkaana aad ugu weyn tahay qadiyadda beesha uu ka soo jeeda ee habargidir, saaxiib dhowna ay yihiin xildhibaanada beeshaasi ka soo jeeda ee mucaaradka ku ah xukuumadda kheyre, taas oo keentay inuu kheyre ka shakiyey haddii xukuumaddiisu ku taageerto Qoorqoor inuu noqdo madaxweynaha galmudug inuu ku abaal dhaco dibna uu u soo celiyo xildhibaanada beesha habargidir ee ka soo jeeda oo aysan doonayn in dib loo soo doorto sanadka 2021. si kastaba ahaatee maalinta Isniinta ee toddobaadkan ayaa la filayaa in caasimadda galmudug ee dhuusamareeb uu gaaro ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, kaas oo la filayo inuu kulan toos ah la yeelan doono hogaamiyaha ururka ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan, islamarkaana wiilkiisa Cabdisamed Macalin Maxamuud xil wasiir laga siiyo xukuumadda Kheyre, sidoo kalena gabar uu macalinka dhalay safiiradda Soomaaliya ee ka fadhisa Kampala loo magacaabi doono, taas oo ka mid ahayd codsigii hogaamiyaha ururka ahlusunna, islamarkaana keentay inay ahlusunna la saftaan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ballamihii uga baxaan madaxweynaha galmudug Axmed Ducaali Geele Xaaf.
halka warkaas uu idinkaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka markana wararka dibadda. Maamulka gobol ka tirsan Mareykanka oo madax furasho lacageed siinaya koox burcad ah. Maamulka gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa go'aan ku gaaray in uu lacag madax furasho ah oo gaarayso $600,000 siiyo koox ka mid ah burcadda internetka si ay dib ugu soo ceshadaan xog laga dhacay kombiyuutarada maamulka. Dowladda hoose ee gobolka ayaa waxay u shaqayn waayeen kombiyuutaradii markii ay weerartay burcadda internetka si ay madax furasho u weydiistaan maamulka isla markaasna dib ugu soo celiyaan howshoodii. burcadda ayaa waxay jabsadeen xogta waaxda gurmadka degdega ah waxayna arintaas u horseeday in qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ay ku shaqeeyaan warqad iyo qalin. Shaqaalaha dowladda hoose ee magaaladaas oo gaaraya 35,000 ayaa u codeeyay in lacag madax furasho ah la siiyo burcadda internetka si loo soo celiyo xogtii laga jabsaday. Waxayna arintan ka dambeysay baaritaano ay sameeyeen khubaro maamulka u qaabilsan arrimaha ammaanka internetka. Lacagta madax furashada waxaa lagu bixiyay nidaamka Bitcoin waxaana lacagta lagu maareeyay barnaamijka caymiska ee dowladda hoose. Mas'uuliyiinta qaarkood ayaa sheegay inaysan jirin caddeyn muujinaysa in burcadda marka lacagta ay qaataan kadib ay u soo celin doonaan xogtii ku keydsaneed kombiyuutarada dowladda hoose. Warkii uu daawadayaal xilligan kaga imaanayay warbaahinta isha wararka waa nageynta. Haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe leh oo rukumo si wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya kuu soo gaaro tan iyo kulankeena kan xiga qaybtana daawatahay sidaas iyo nabadgelyo.